kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliweyn Production kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aanu ku soo qaadi doono barnaamijyadeena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta uu cadaro culus oo yaab la ka dhigayo magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh oo kala xirtay caasimadda xilli maanta munaasabad weyn oo ka socoto magaalada Muqdisho uu uga dhawaaqayo xisbigiisii weynaa ee wadajirka iyo cadaaladda oo ay qayb ka yihiin inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay wax walba uga baahan tahay munaasabadda ballaaran ee goordhow ka bilaabatay magaalada Muqdisho isla markaasina lagu soo bandhigayo xisbiga midnimada ama wadajirka iyo cadaaladda kaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gudoomiyay musharax uu ka yahay aynu ku midaysiin inta badan madaxda maamul goboleedyada. haddaba munaasabadan ayaa joogo lafta gareen qayb ma ka yahay firdhiyada ma ku jira waxaan idin la wadaagi doonaa xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay xisbiga Xasan Sheekh iyo shaacintiisa oo xogo cusub ay ka soo kordhayaan. qodobada kale aan idiin soo gudbin doono wararkeena qayb ka noqon doono waxaa kamid ah wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay xogo dheeri ah oo laga helayo Puntland oo dalab culus oo dhigtay beesha caalamka. haddaba muxuu yahay dalabka yaabka leh oo ay Puntland hor dhigtay wakiilada beesha caalamka macluumaadkeena ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. Jubbaland dowladda federaalku waxay ku eedeysay afduub maanta ka dhacay gobolka Gaday ee Soomaaliya heshiis halis ku ah madaxbannaanida dalkana waxaa la horgeeyay baarlamaanka. wararkii macluumaadkii ugu dambeeyay xogaha iyo kuwa kale ayaan idiin heynaa. soo dhawaada saaxiibayaal waa 13 bisha May sanadka 2025 wararkeena ayaynu guda geli doonaa. ku bilaabno wararkeena isla markaas ugu horeysiino wararkii ugu dambeeyay xogo cusub oo ka soo kordhaya xisbiga ay ku midaysan yihiin Xasan Sheekh iyo maamul goboleedyada dalka. maanta waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si rasmi ah looga dhawaaqayaa xisbiga cadaaladda iyo wadajirka kaasi oo ay ku midaysan yihiin xubnaha sarsare ee ka tirsan hoggaanka siyaasadda ee dalka. haddaba munaasabadda shaacinta xisbigan oo qorshe u ahaa inay qabsoomto Arbacadii ayaa dib u dhacday waxaana haatan la soo warinayaa in goordhow ay si rasmi ah uga furantay magaalada Muqdisho. haddaba wararka iyo macluumaadka la helaya ayaa sheegaya in goordhow munaasabadda ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho iyada oo ay ka qaybgalayaan inta badan xubnaha waaweyn ee xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD ka soo guuray isla markaasina wadajirka iyo cadaaladda u guuray iyo xubno badan oo dib kaga soo biiray xisbiga waxaana kamid ah qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada oo xisbiga ku biiray. xog aan helnay ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo sababihii baajiyay kulankii hore ee xisbiga qayb ka ahaa inuu isagu hadda joogo magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay munaasabadda ka socoto magaalada caasimadda Muqdisho. warar lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in uu ka qayb galay lafta gareen munaasabadaasi oo uu hadda joogo. sida muuqato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dareysan miisaanka ay yeelan karto haddii uu lumiyo lafta gareen ayaa ku guuleystay qancintiisa. lafta gareen ayaana hadda la soo sheegayaa in xubnaha howlka lagu arkayo uu qayb ka yahay. xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waday diyaarinta munaasabadan weyn iyadoo markii hore loo balansanaa in Arbacadii hore lagu dhawaaqo balse sababo jira awgood ayaa dib loo dhigay. si kastaba ha ahaatee maanta ayaa si rasmi ah xisbiga loo soo bandhigay shacabka Soomaaliyeed. munaasabaduna waa ay socotaa madaxda ayaa ku sii qulqulayo howlka uu ka soconayo munaasabadan ee howlka sahal halkaasi oo madaxdu ay tagayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha ayaana ka qayb galaya munaasabadaasi ballaaran iyo xubnaha waaweyn ee xisbiga ee Damul Jadiid UPD ilaa iyo wadajirka cadaaladda Xasan Sheekh garabkiisa ahaa. haddaba isku soo wada duubay wararku waxay tilmaamayaan in xisbiga ugu dambeyntii khilaafkii dhexdiisa laga heshiiyay gudoomiyaha ayaa loo doortay iyo musharaxa xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud halka dhinaca kaleetana ay noqonayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo lafta gareen ah gudoomiye ku-xigeenka labaad oo Xamse Cabdi Barre iyo xogayaha xisbiga oo Cabdiraxmaan Odowa uu ku adkaystay oo isagu loo daayay. hadda ayayna munaasabadaasi ballaaran ay ka socotaa magaalada Muqdisho. khudbado kala duwan oo xasaasi ah ayaa laga jeedinayaa munaasabadaasi oo madaxda ka qayb galayso ay ka hadlayso artiyaada ku aadan xisbiga Xasan Sheekh iyo munaasabadda ballaaran ee Muqdisho uga socoto hoos ayaad noogu reebi kartaa. dhinaca kaleetana dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa dalab culus oo dhigay wakiilada beesha caalamka. dowlad goboleedka Puntland ayaa baaq degdeg u dirtay beesha caalamka iyadoo ka codsatay in lagu daro barnaamijka xasilinta Soomaaliya oo ay maalgeliyaan hay'adaha caalami ah ee daneeyo arrimaha nabadda iyo xasiloonida dalka Soomaaliya.
haddaba maamulka Puntland ayaa waxuu dalbaday in lagu qadariyo doorka oo uu ku leeyahay la dagaalanka argagixisada isla markaasina aan la iska indhatirin baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira deegaanada lagu xoreeyay kooxaha xagjiriinta ah ee Daacish. qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa si gaar ah diiradda lagu saaray baahiyaha ka jira deegaanada Calmiskaad ee lagu xoreeyay ururka Daacish iyo waliba kuwa calaamadow oo ay ku sugan yihiin argagixisada shabaab, qorshuhuna uu yahay in laga saaro halkaasi. sida lagu xusay bayaanka Puntland waxay si toos ah ugu baaqday beesha caalamka iyo hay'adaha taageera barnaamijyada nabadeynta iyo waliba dib-u-dhiska Soomaaliya inay Puntland ay ka qaybgeliyaan barnaamijyada muhiimka ah ee la xiriira xasilinta. dowladda Puntland waxa ay sheegtay in muhiimad gaar ah ay u leedahay in la garwaaqsado in Puntland toos lagala shaqeeyo arrimaha la xiriira garabsiinta Puntland iyo dagaalka ay kula jirta Daacish oo aan dhinacyo kale loo soo marin. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Puntland marar kala duwan ay u jeedisay dowladda federaalku ayna ku eedeysay in ay ka shaqeysay inay siyaasadeyso arrimaha muhiimka ah ee la xiriira gargaarka bini'aadantinimada. dhinaca kaleetana baarlamaanka Soomaaliya waxaa la soo warinayaa in heshiis halis ku ah madaxbannaanida dalka la horgeynayo. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xildhibaan Cali Cumar Maxamed ayaa ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya in si degdeg u ansixiyo heshiis cusub oo uu dalku la galayo urur goboleedka IGAD. si kastaba ha noqotee khubaro sharciyeed ayaa ka digaya in haddii heshiiskan la meel mariyo iyada oo aan shuruuc adag lagu darin uu khatar gelin karo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, xuquuqda badda iyo hantida dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. haddaba istiraatiijiyadda IGAD ee 2021-2025 waxay dhiirigelinaysaa isdhexgal dhaqaale iyo amni oo qoto dheer oo dhex mara dowladaha xubnaha ka ah ee qayb ay ka tahay urur goboleedkaas IGAD ku jira. inkastoo hindisaan uu xoojinayo iskaashiga dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, ganacsiga iyo deegaanada, haddana waxaa ku jira ereyo si cad u qeexaya oo ku saabsan kheyraad wadaag iyo weliba horumarinta xuduudaha markaasi ka baxsan, kuwaasi oo falanqeeyayaal u arkaan in si qaldan loo adeegsan karo si baa la yidhi looga faa'iideysto kheyraadka dabiiciga ah ee uu Alle u ku manaystay Soomaaliya. mid ka mid ah walaacyada ugu daran ayaa waxa ay tahay sidii Itoobiya u fasiran karto heshiiskan oo muddo dheer raadinaysay marinbadeed inay ka hesho Soomaaliya, waxaana ay lumisay xeebteedii markii Eritrea ee madaxbannaanida ay ka qaadatay horaantii 1990kii ama 90meeyadii, waxaana wixii ka dambeeyay Itoobiya ay ku hanweyneyd inay hesho bad. tani waxaa loo arkaa inay u fududeyn karto Itoobiya inay soo damaaciso badda Soomaaliya. isku soo wada duube talaabadan heshiiska lala galay IGAD ayaa loo arkaa baarlamaanku haddii ay ku degdegaan in khatar culus uu ku yahay madaxbannaanida Soomaaliya, kheyraadka dabiiciga ee dalkeenu waa la ku manaystay arrimo kale. dhinaca kale maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland dowladda federaalku waxuu ku eedeeyay afduub maanta ka dhacay gobolka Gado. war-saxaafadeed goor ka soo baxay Jubbaland ayaa waxaa looga hadlay fal afduub ah oo maanta ka dhacay degmada Garbaare ee gobolka Gado, kaasi oo sare u qaaday xiisadda maamulkan kala dhaxaysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa sheegtay in ciidamo ka amar qaata dowladda dhexe ay maanta degmada Garbaare ka afduubteen Axmed Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa ururada bulshada rayidka ee degmadaasi, kaasi oo ay sheegtay Jubbaland in lagala baxay gurigiisa. Axmed Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa ururada bulshada rayidka ayaa goor dhaweeyay ciidamo ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu waxa ay ka afduubteen baa la yidhi gurigiisa oo ku yaala degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gado. warka ka soo baxay maamulka Jubbaland sidaas ayaa lagu yidhi. Jubbaland ayaa sheegtay in ciidamada ka amar qaata dowladda dhexe ee talaabadaasi ay geysteen iyadoo ka digtay falalka ceenkaasi oo kale ah. ciideynta culus ee ka timid Jubbaland ayaa ku soo aadayso iyadoo shalay dowladda Soomaaliya ee muddo bilooyin ah kadib ay fasaxday diyaaradihii tegi jiray gobolka Gado. xiisadda labada dhinac ayaa haatan u muuqato in ay dib u soo laba kacleynayso, waxaana hurinayo bayaankii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran oo lagu sheegay in Jubbaland la sameynayo oo Jubbaland sharci ah dowladdu ay u sameyn doonto maamulkaasi. xaaladda Jubbaland ayaa waxaa sidoo kale loo xil saaray inay ka soo tala bixiso wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. si kastaba ha noqotee labada dhinac ayaa hore u dagaalamay, waxaana haatan mar kale ay iswajihi doonaan kadib tallaabooyin ay damacsan tahay dowladda, waxaana arrintani ku soo aadaysaa xilli dalku ku jiro marxalad adag oo xasaasi ah.
wararkaasi oo idil aragtida hoos nagu reeb gudaana barnaamijyadeedkeena maanta waa naga taabin lahayn nabadgelyo.